meeshaas aad aragto waa dhulka. haa waa dhulka aynu ku noolnahay anagu. qalab dhawaan ee NASA u dirtay Mars ayaa sawirkan soo gudbiyey. dhibicdaas yar ee ifaysa waa dhulkii. waa meesha ay ku nool yihiin noolayaasha keliya ee koonkan ku dul nool inta la og yahay. waa hooy xarun u ah ku dhowaad 8 bilyan oo qof iyo 100 trilyan oo noolayaal kale. waa meesha qura ee nooli suuragali ka tahay koonkan. qalabku wuxuu sawirkan qaaday iyadoo dhulka u jiro masaafo 55 milyan oo kiiloomitir ku dhow. halkaas yar ee ifaysa ayaa la socota dhaqdhaqaaq walba oo koonkan ka jira oo noolayaal ku nool sahmintooda wili wadaan. halkaa yar ayaa laga soo diray qalabkan wax sawiraya. meeshaas yari waxay da ahaan jirtaa inta la og yahay ilaa 4.5 bilyan oo sano. halka Mars oo da ahaan jiro inka weyn ku dhowaad 100 bilyan oo sano inta uu dhulka jiro. Mars wuxuu ka yaryahay dhulka oo markii 3 meelood dhulka loo qeybiyo 2 ka mid ayuu la eg yahay. waa meeraha qura ee bini'aadamku ka rajo qabo in nooli suuragali ka tahay mustaqbalka, taasoo sababtay in tartan loo galo oo dhaqaale badan lagu baxsho. waxaa lagu naanaysaa meeraha cas. magaca Mars waxaa u bixiyey Romaankii hore maadaama ilaahoodii dagaalka ee magacaasi ugu yeeri jireen. waxayna kaga tusaale qaateen asigoo cas oo dhiigga u eg. iyaguna waxaa la sheegaa inay Griigii hore ka koobiyeen magaca. qalabkan waxaa la diray 30kii Julaay. muddo 7 bil ah ayuu u socday Mars oo 18kii bishii hore ayuu ka degay oogada Mars. haddii aan si kale u dhaho 18kii bishii aynu ka soo gudubnay ee Febraayo ee sanadkan aynu ku jirno 2021 ayuu ku dul degay meeraha cas. saacadii 39,000 oo kiiloomitir ayuu u jiray si uu u gaaro Mars. masaafada ugu fog ee Mars inoo jirsato waa ilaa 400 milyan oo kiiloomitir. tan ugu dhowna waa ilaa 55 milyan oo kiiloomitir.